haddaad hore u ogeyd daawade in ay kubad ciyaaristu gaar u tahay dhalinyarada gaar ahaan ragga ayaa haddaba waxaa magaalada Hargeysa caasimadda deegaanada Soomaaliland ku soo badanayay Mudooyinkii u Dambeyey hablaha kala duwan ee samaysanaya naadiyada kubadda kuwaasi oo garoomo kala duwan oo cagaar ah ama sidoo kale salaxa loo yaqaan ku dheelaya hasaate telefishinka RTN ayaa u kurgalay hanaanka iyo waliba sidoo kale qaabka kala duwan ee kubadda hablaha soo ciyaaraan حتى waxay leeyihiin tababarayaal iyagu maamula sidoo kalena waa isku dhacaan sidii caadiga ahayd ee kubadda lagu yaqaanay magaalada Hargeysa caasimadda deegaanada Soomaaliland waxa warbixintan inaga soo diray wariyaha RTN ee Xamsada Barre waa koox gabdho oo badan dhalinyaro kana midaysan hal fikir oo ah inay ka midha dhaliyaan ka dhabeynta hamigooda ku aadan kubadda cagta waxaa inta badan kubadda cagta ku caana ragga laakiin way ku yartay gabdhaha Soomaaliyeed ee ciyaara kubadda cagta Khadra Ali Ibrahim waxay kooxdan aasaastay iyada iyo asxaabteedu 2015 markay ay arkeen inay jiraan gabdho ku fiican ciyaarista kubadda cagta ayna keentay in la sameeyo koox ku ciyaarta magaca caasimadda Hargeysa waxaan ka aasaasnay garoon la yiraahdo garoonka libaaxyada marka waxay ahayd maalin public ah la iman jiray oo sabtida maalinta wala wada ciyaari jiray waqtigaas may jirin 2015 bartamaheedii baa may jirin naadi toos ah oo kubadda ciyaaraha Hargeysa leedahay garoonka inta isugu timaado halka ku ciyaarto mooyaane marka waxay keentay markii garoonkii la isugu yimay qof waliba soo bandhigay xirfadiisa kubadeed in ay soo baxeen dad badan oo xirfadda kubadda takhasus ah oo aad ugu fiican qaab ciyaareedka kubadda haday noqoto dhex weerar iyo difaac gooliyaal hadda kooxdan Hargeysa waxaan u aasaasnay maadaama aanay jirin koox kale oo ku ciyaarta magaca caasimadda aanay jirin waxaan door bidnay inaanu noqono maadaama aanu leenahay xirfadeedii iyo tayadii kubadeed labadaba aanu leenahay waxaan door bidnay inaanu noqono kooxda ugu horeysay ee ku ciyaarta magaca caasimadda waxaa jira caqabado kaga yimaada waalidka waxaana xusid mudan waqtiga ay u qoondeeyeen inay ciyaaraan kubadda marka ay soo dhameystaan inay jiraan dhalin rag u badan inay kala kulmaan niyad jab markaan ma aragtay garoon amba aan meel ka soo dareerno kale laga hadalna yimaado hadii waalid noqoto hadii dhalinyaro noqoto baa la yiraahdo sibad rag oo badnaadaan dumar baa tiin maxad ka ciyaarsan alqabadaas anagoo maxaa hayday garoomo weyno haddaan ku kaysano waxna helnaa waa xiliyada ugu daran in la ciyaari karo waa sida labada kowda xiliyadaas oo maxaa hayday garoomo intooda badan baa ay banaan yihiin oo cid ku ciyaarin haddana wallaahi uma joojino waxna hoday xirfadkaas uma joojinaysid ku suganaa waa salax ama sida dadka qaarkood u yaqaan garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro gaar ahaan garoonka rooga ee dhalinyaradan iga dambaysa ee hablaha ah ee kubadda cagta ku ciyaara halkan oo garoonka ah uma ciyaarayaan in ay iskaga biyaan stresska ama sidoo kale cayilka sida dadka qaarkood ay u yaqaaneen laakiin waxay ku taamayeen inuu mar uun hamigooda kubadda cagta ay ka dhabeeyaan wallahi waxaan hamigan ka leenahay ma hamiya waxaan naagulbay doontaa amba ay ku hiiray sida maxaa hayday ciyaartooyada caalamka kale sida Riyad Mahrez Ibrahim kale Messi kale iyo Morgan kale in naagulbay ay gaadho walo aan jirin doon laga gaarin horumar wadankeena hadii la eego dumar ahaan haddana wallahi dadaalkeena aad yihiin aad buu dheeryahay waxaan jecelnahay inta ka badan bayna soo saarno maxamed nuux jibriil agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaan wax ka weydiiyay balka wasaaradahan sida ay u arkaan gabdhaha ku soo badanayo ciyaarista kubadda cagta waxana uu sheegay inuu soo dhaweynayo cid kasta oo ciyaaraysa kubadda cagta dhalinyarada ciyaaro dhan bay ka masuulta marka ciyaaraha waa caafimaadka ku jira marka in deecidii ciyaaraha ka qayb qaadanaysa soo dhaweyn waxa Mudooyinkii ugu dambeysay saacada kubadda cagta ku soo badanayay gabdhaha Soomaaliyeed ee ciyaara kubadda cagta Xamsada Barre Hargalka RTN TV Hargeysa